magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxilna waxaa saaka laga xusay maalinta loo asteeyay amaba loo calaamadiyay ee maalinta qaxoontiga adduunka oo ah 20ka Juun balse 2 cisho hore loo soo dhigay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee gobolka Saaxil iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay hay'adda UNHCR ayaa socod luga ku maray laamiyada magaalada Berbera ugu horeyn mas'uuliyiinta hay'adda UNHCR oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen qaxoontiga iyo marxaladihii kala duwanaaday uu soo maray farxad weyn bay noo tahay inaanu maamul gobol ahaan la qaybsano dadka qaxoontiga runtii wadankoodii hooyo ka yimi iyagaba duruuf baa la keentay lugtan runtii lagu xusayaa macnaheedu waxa weeyaan dad badan baa la yaaban runtii dadka wadankoodii hooyo dhibku ka keentay in lala dareemo oo la tuso in runtii in iyaga lala jiro iyaga la taag all our partners in Berbera and Somaliland. This year, 2019 World Refugee Day, this is part of activities to mark the 2019 World Refugee Day, which is work with the refugee. Globally, UNHCR supports refugees across the world, and this year team, because of the issues that refugees are facing globally in terms of discrimination, in terms of our refugees are being victimized globally. waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maayarka Berbera iyo governorka anigoo ku hadlaya magaca hay'adda UNHCR waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa sida wanaagsan ee dawladda Somaliland ay uga qayb qaadato inay caawiso inay soo dhaweyso inay dadkeeda oo kale ay ku darto dhammaan qaxootiga wadanka jooga gaar ahaan magaalada Berbera maanta kale waxay ka mid tahay maalimaha lagu xuso meelo kala duwan oo adduunka kamid ah oo ay kamid tahay caalamka oo dhan mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay la shaqeyn doonaan dadka ku dhaqan magaalada Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil ee qaxoontiga maadaama Berbera ku taalo gatewaygi ama albaabkii dunida meelo badan oo dunida laga soo galiyay Somaliland waxa weeyaan qaxoontigu degmadana aad buu ugu badan yahay magaaladana uu ku badan yahay qaxoonti badanna wuxuu soo maraa channelkan aan ku nalay dekada runtiina siyaasadda guud ee qaranka ee madaxweynuhu hogaaminayo waxa weeye in dadka qaxoontiga markasta la soo dhaweeyo iyadoo maanta aynu socod ku xusnay maanta adduunku isla qaatay maanta qaxoontiga Somaliland iyo dadka reer Somaliland waa dad bisil oo yaqaana dhibta waxaan ilaahay u barinaa cid kastaba ha ahaadee in ilaahay dhibta ka dul qaado dadka qaxaya iyo dadka dhibaatooyin ku dhacaan malaha colaadaha u qulaya abaaraha iyo raxmadda iyo roobkaba ilaahay waa ciqaabkiisa weyn ilaahay baan ciqaabkiisa uga magan galeena waxaynu maanta Berbera gudaheega ku xusnay socod maalintii qaxootiga adduunka oo ka dareen ahaan ka gobol ahaan aan ku xusaynay inaan intaasoo maxaan ku dhahay luga soo marno oo laamida soo qaadno runtii socodka waxaan noo sameynay muhiimadda ay noo leeyihiin dadka qaxootiga halkan waxaynu socod ku sameynay ama socod ku xusnay inaynu la wadaagno dadka maalinta qaxootiga adduunka Somaliland iyadoo tixgelinaysa oo xaq dhowraysa xeerarka caalamiga iyo humanitarian declaration iyo UN conventionska waxay qaabishay oo doorkeeda qaadatay inay qaabisho qaxoonti badan oo aan Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV magaalada xeebada Berbera.